إله ما هذا إسكاله بريهان وحاور آد أدران لوهايا معلمين iyo culimada yani tusaale ahaan reer galbeedka markii qof muslim ah oo qalad sameeyo weerar waxa lagu qaadaa dhammaan dadka muslimiinta inaa weerar lagu soo qaadaa iyo diinta islaamka ay haysto markii qof macalin maanta waa aragteen qof macalin ama qof dugsi dhigay oo kala macalin hadii xogaa qalad uu ka dhaca kiisa wax qalad sameeyo macallimiinta dhan iyo dugsiga quraamanka dhan aal haysta marka waxaad arkaysaa oo boqol ba aad qofka aqliga leh fahmaya in weerar uu san ahayn kaliya ee macalinka shakhsiyan oo wax sameeyma laakiin weerarku waxa ku socda dhammaan macallimiinta ee dugsiga dhiga waxa loo socdan waxa way quraanka la joojiyo la barano waa intii la arkay dadka muslimiinta inay ku dadaalayaan quraanka barashadiisa ee mar walba dugsiyada saas oo furiyiin ardayda badan ku dadaalaysa quraanka waxa muuqato dadkaas maxaa la yiraahdaa in waxba laga qaban karin dadkaas diinta islaamka in waxba laga qaban karin marka si dhankaas loo soo xiro macallimiinta weer lagu soo qaado culimada weer lagu soo qaado caadiin iska waaba muuqataaba in loo soconin qof shakhsiyan loo soconin laakiin loo socdo diinta islaamka in loo socdo marka ilaahay subhanahu wa ta'ala waxayna fahamsiyo kuwana maxaa la yiraahdaa falalkaas maxaa la yiraahdaa cadowtinimada diinta islaamka ku hay iyo macallimiinta iyo culimada waxaan leeyahay guul ma gaari doontaa waana guul dareysan doontaa meel kasta joogtaan baa guul dara idin sugayso adduuni aakhiraba guul dara idin sugayso marka farantaan meel hala gaarsiyo dadkan macallimiinta iyo culimada ku dhigan in uu dambeyn doonto shalay iyo guul daro adduuni aakhiraba assalamu alaykum